السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا دمان إدي لهانتين بكونو سو دوادا كنالكينا كولا صدح صومالي muuqaal kale oo cusub. muuqaalkeena kana maanta waxa uu daaran yahay tuug afar kaboodlayaal oo dhacday dhul ay dad islaami leeyihiin ilaa hadda gacanta ku haya. waxaynu jeednaa waa Israa'iil iyo Yuhuudda haysta Falastiin. muuqaalkeena kan waxaanu ku laafaguri doonaa sidee Israa'iil ugu suurta gashay in ay dhulkan gacanta ku dhigto. yaase Yuhuudda gacan ka siiyay gacan ku qabashada Falastiin. ilaa maantana hiil iyo hooba la garab taagan. fadlan se haddii aad kanaalka ku cusub tahay ay tahayna markii ugu horeysay aad muuqaaladayda daawato nagu soo bir adigoo subscribe taabanaya gambalaalkana furo lacag kugu qori mayso annagana dhiirigelinaya inoo tahay si uu kuu soo gaadho muuqaal waliba markaanu sidaa u soo gelinaa videogana like gare kuu soo dhawaada muuqaalka maanta. فلسطين سندي كون سجال بقولكي بلوغي قرنيجي لباتنات سيبها سندي كون سجال بقول دالك فلسطين تديوغي كنولا وحيا هايم بقولكي بكوبي ستيتن إسلام هالك بقولكي بافريتو من نايكا هيستين ديتنا كريستايكا بقولكي بشانتا كريسو هادين وحيا هايم يهود ummadaasi waxay ku dhaqnaayeen dalka Falastiin iyagoo u wada noolaa si ammaan ah waayo waxay harsanayeen cadaaladda islaamka oo waqtiga waxa Falastiin gacanta ku haysay dawladda Uthmaaniyiinta. yuhuuddu waqtiga may lahayn sida dadka kala dhul ama deegaan ay leeyihiin taa beddelkeeda waxa ku kala tafaraaruqsanayeen daafaha caalamka ee kala gedisan siibaha waxay u badnaayeen Yurub sanadii 1896 ayaa suxufi yuhuudi ah oo magaciisa loo yaqaanay Theodor Herzl waa balada garka weyne ayaa waxa uu soo saaray buug uu ku tirtirsiinayo kuna abaabulay yuhuuddu in ay yeeshaan dhul ay leeyihiin. waxaanu yuhuudda u soo bandhigay in laba dal mid ahaan ay ka yeelaan dalkooda ay doonayaan in ay dhidibada u taagaan waa labada dal ee Argentina iyo Falastiin. shir iyo wada tashi kadib yuhuuddi waxa isku afgaratay in Falastiin ay noqoto halka ay ka taagayaan dawladooda. markii ay istameel dhigeen in ay Falastiin noqoto halka ay u hayaamayaan waxa ay si toos ugu tageen boqorkii dawladda Uthmaaniyiinta ahaana khaliifkii muslimiinta oo la oranayay Cabdilxamiid الثاني iyagoo uu sheegay boqorkii in ay doonayaan in uu ka iibiyo dhulka Falastiin ee maamulkiisa ku jira diyaarna ay leeyihiin in ay kaga bedeshaan wax allaala wuxuu doono ee maal adduun ah. boqor Cabdilxamiid الثاني arrinta iyada si cad ayaa uu yuhuudda uga diiday waxaana uu sheegay in uu dhulkani yahay dhul islaam ku leeyahay ee aanu isagu lahayn حقنا أنا والله إنه عدو الضغرة كإيبي وحي إنتا كدنبي سلطان عبد الحميد الثاني وحاو قيد داريا كو قابن بوفولي إنه هر استاقد دمع يهوده قال دون الدبادك الريحيسو نصيب حما سلاكي سند يكون سقال بقولي سقال كأيا لقا عسلي حلكي بقرة النبو دولة دي عثمانيين تناقات أياي وضعيف تي وقتقا كاقا سيدرانتا سند يكون سقال بقولي آفريو طبنكي وحاو قرحي دقال وينهي أدونكي إيكوبان دولة العثمانيين تروي قشي وانا اللي قصو تشبي لحية طبنكي مي سنة يكون سقال بقول لحية طبنكي دلالك فرانسيسكا انجريس وحا اي قلان هشيسكي لو يقاني سايس بيكو اي كو قيب سنيان دلالكي اي كاقادين دلالكي اي كاقاد كادين دقال وين هي ادونك اي كوبان فلسطين وحا قيب هشي دولة دي بريتين يهود مركا اي مقلين دالكي فلسطين اي ادونيسين وحا وقع عنقلي بريتين waxay si toos ugu tageen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas isna waxa uu si cad u taageeray damacooda ka haya dhulka Falastiin. sanad kadib 2 November sanadii 1917 waxa ay dawladda Britain soo saartay ballanqaadkii loo yaqaanay Balfour taasi oo ay ku muujinaysa taageerada ay yuhuudda u hayso iyo in ay hiil iyo hooba la garab taagan tahay sidii yuhuuddu uga dhisan lahaayeen dal ay leeyihiin dhulka Falastiiniyiinta. ballanqaadka kana waxa loogu bixiyay magaca Balfour waayo wasiirka arrimaha dibadda ee waagaas ee dalka Britain ayaa loo yaqaanay Arthur Balfour abarqabaha shaaruha weyn gumaystaha Ingiriisku intii uu haystay dalka Falastiin waxa uu ku soo daadgureeyay boqolaal kun oo yuhuud ah waxaanu sanadii 1947 kala baxay ciidamadiisii dalka Falastiin isla markiiba David Ben-Gurion oo ahaa hogaamiyihii yuhuudda ayaa ku dhawaaqay aasaaska iyo samaysanka dawlad yuhuuddu leedahay oo la yiraahdo Israa'iil. Falastiiniyiinta arrinta tan waxay kala hortageen kacdoon hubaysan Israa'iil ayaa si awood roonaatay waxaa soo farageliyay xiisada ka dhex taagan yuhuudda iyo Falastiiniyiinta markan qaramada midoobay
base kula tahay inay khayr la shir yimaadeen maya runtii waxay soo saareen qaraarkoodii loo yaqaanay 181 oo ay ku shaaciyeen in dhulka Falastiiniyiinta loo qaybinayo Yuhuud iyo Carab qaybintoodii aan cadaaladda haba yaraatee sal iyo raadka ku lahaynna sida tan bay ahayd Yuhuud oo tiradoodu dhammeed waqtigaas kaliya 650,000 waxaa loo gacan geliyay 450 dhulkii Falastiiniyiinta halka Carab oo tiradoodu dhammeed 2,560,000 oo qof kaliya loo gacan geliyay 46 dhulkii Falastiin ee iyagu hadda lahaayeen sanadka ku xigay ee 1948 dalal ay ka mid yihiin Masar, Urdun, Lubnaan iyo Ciraaq ayaa dagaalka la soo galay Falastiiniyiinta iyaga oo Yuhuudda weerar ku soo qaaday nasiib xumo laakiin Israa'iil ayaa dhamaantoodba ka adkaatay waxaanay gacanta ku dhigtay Falastiin intay ka tira leekayd laba meelood marka laga yimaado oo ah Gaza iyo Daanta Galbeed Falastiiniyiintii ismay dhiibina waxay ku wajaheen dulmiga lagu hayay iska caabin hubaysan iyadoo Yuhuuduna kaga falcelisay xasuuq ay u geysteen kumanaan kun oo Falastiiniyiin ah markan Israa'iil kibirkeedii ayaa kibir ka batay kumaysan ee kan dhulka ay Falastiiniyiinta ka qaatay waxay u hanqal taagtay qabsashada dhul kale oo dalal Carbeed leeyihiin iyadoo sanadii 1967 weerar laxaad la ku qaaday dalalka Masar, Urdun iyo Suuriya iyo sidoo kale Falastiiniyiinta dhulkooda haysteen ugu horreyn bay Israa'iil waxay gacanta ku dhigtay isla markiiba dhulka Falastiiniyiinta uu ka tira leeka kadibna duulaan ku ekeysay dalka Masar ayaa ay ku qabsatay lama deegaanka Siinaa isla duulaanka laftiisa Suuriya waxay kaga qabsatay buuraleyda loo yaqaan Guulaan dhulka intaas faraleegna kaliya ta Israa'iil waxay ku qabsatay 6 maalmood oo kaliya 6 sano kadib jabka soo gaaray dawladaha Carbeed sibahan sanadii 1973 ayaa duulaan wada jira ku qaadeen dalalka Masar iyo Suuriya ee Israa'iil 6 Oktoobar 1973 oo ku beegneyd maalin ay Yuhuuddu cibaadaystaan oo la yiraahdo Ciidul Ghufraan ayaa ay bilaabeen Masar iyo Suuriya weerarkoodii dabcan way ka adkaadeen Israa'iiliyiintii Masar waxa ay dib uga soo ceshatay Israa'iil lama deegaankii Siinaa ee ay ka qaaday 6 sano ka hor halka Suuriya ay u suurtagal weydeen nasiib xumo in ay soo dhicisato buuraleydeedii Guulaan ilaa haddana waxaa gacanta ku haysa Israa'iil kadib dagaalka 1973 ee lagu jabiyay Israa'iil waxa ay bilaabeen reer galbeedkii oo ugu horeeyeen midowga Yurub iyo Mareykanku in ay hubeeyaan Israa'iiliyiinta heer ay gacanta u galiyeen hubka wax gumaada ama nukliyeerka iyadoo Israa'iil noqotay dalka ama dawladda kaliya ee ka jirta bariga dhexe ee hubka kaasa haysata waxaana xaqiiqa in aanay Israa'iil ba iyo taqtoonahayn haddii aanay bari taabayn dawladaha awoodda waaweyn waa kii abwaankii Soomaaliyeedna lahaa Israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego beerta kuma afaysteen waa 100 Yuhuudi rag baabiirinayo baarka u fidhaaye barqa laguma gaadheen badda kuma ciyaareen barbaarada ma laayeen haddaan muruqa buuxiyo isticmaal ku baal jirin bayda u garaacay Allah ilaahay rumbuushay inta doonta ha qaadatay Allah waxa uu ballan qaaday ummadda islaamka in ay iyagu gacanta sare lahaan doonaan inta laga gaadhayo waqtigaas waxa ay nagala gudban walaalaheena reer Falastiin in aynu hiil iyo hooba isla garab istaagno ugu yaraan in baraha bulshada ee had iyo habeen aynu ku fooganahay aynu ka taageero ha noqoto Facebook Instagram ama WhatsApp haddii ay tahay markii kugu horeysay aad kanaalkan daawado fadlan nagu soo bir adigoo subscribe taaban iyo xaray laabin inaad gambaleelka furato si muuqaal waliba markaanu sidaa u soo gelino oo ku soo gaaro videogana like gare وراسي شرقنا أصحاب هذا سلوغا وذا فايدست كنا وين انستغرام كيجا سوف لوكري نبادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.